meel inoo hagaajiyay arrintii aan ka ballansanayn gabagabadeedii su'aalihii baa bilowday insha allahu tacaala haddii ilaahay raalli ka dhigo su'aala dhowr ahay gabdhaha xaggooda ka imaaday culimmada qaarkeedna su'aalay qabaan insha allahu tacaala su'aalahaasaan rabaa inay culimmada inooga jawaabaan haddii ilaahay raalli ka dhigo sheekh qudbi way ku socdaan baan malaynayaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم horta waxaan celinaynaa marka koobaad culimadan sharafta leh ee walaalaheena ee meesha fog runtii inooga yimi inaan xuduurka iyo aamusnaanta iyo aadaab aan ku qaabilnana waa muhiim waaye maxaa yeelay hadiis waxaa jira nabigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay idaa ataakum kariima qowman faakrimuun hadduu idin yimaado qof laga karaameeya meeshuu joogay idinkana karaameeya nimankan waa niman culimo ah oo imaamiye ah hawlay lahaayeen innaga inay inoo faa'iideeyeen maanta inoogu yimaadeen marta marka hore culimada waan u mahadnaqaynaa baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra intaa kadib culimadu waxay inoo sheegeen wax badan runtii oo dee moogtahay laga naco oo soo socdo oo ilmaheenna ku saabsan dadku culimadu markay sheekaynayaan waxay ka sheekeeyaan waciid iyo wacdi bay ka sheekeeyaan waciidku waa jahanaba iyo iscadaaba iyo haddana waxaa loo sheegaa wacdi iyo janno in la gelayo marka qof kasta oo maanta meeshan fadhiya runtii riboodka wadadu ina siinaya uu naxaya because wuxuu arkayaa wax inagu soo socda marka anugu hal su-aalun baan qabaa su-aashaas baan rabaa inaan anugu horumarsano sheekha waxaan weydiin lahaa qabduli baaraka allahu fiikum iyo saddexda wadaadba waxaan weydiin lahaa kulligoodba midkee jawaabta siinayaan igaa garanaye maxaa xal ah dhibkii waa noo sheegay allah idin barakeeyo ilmihiina de waddankay joogaan oo waddankii ilmihii caaskii baan la nimid maxaa xal ah for example anugu waddanka kenyaan ku noolaan jiray muddo badan ilaa 1991 ilaa 2015 nairobi iyo waxaan joogay kenya waddankaasaan joogay waxaa jira minister of education wasaaradda waxbarashada ee kenya in la jira professor saitoti baa ka ahaan jiray minister of education soomaalidu waxay kasoo dhamaysteen oo qolada baarlamaanka kasoo dhameeyeen in soomaalidu ay samaysato iskuulla barayfad ah oo annagu aan leenaho aan maamulno aan wax ku baran karno ilmaheena marka su-aasha waadada aan weydiinaya waxaa weeye allah barakeeye waddankan horta sideedaba systemka educationka ah ma inoo ogol yahay inaan sida kenya oo kale iskuulla barayfada oo macalimiintooda inagu aynu mushaarka siino dowladda la kaashano ilmaheena si inoogu badbaadaan oo baladan ugu soo socota uga raysano systemka dowladdu ma inoo ogoshahay sharciga maraykankaasi ma qaba anigu su-aashaas waan horta iyaan igu taagnayd oon horumarsan lahaa iyo maxaa xal ah sideedaba balaayadan sidaan uga baxna baraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu sheekh qudbi waan siinaya insha allahu tacaala jawaabta inuu ka jawaabo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقت كوبي هم أنا المغرب كوحيل كده سؤال شكوبات قف سوي دي ما كان نعم رجع سيدك وان كرامك عروت وقع بتشان هرتا تكوبات الله نجا إلى اليوم عروت وقع بدرت إلى حباس حتى لو حان مرة يعني أصلنا هي بيبودن كوحيا أما يكسر صعدا ما لكن نظام كسكول كي ما سألوا وان كرا تطور يصدوا ما حرك وقف عن علماء وكذا شيء حرك وقف عن وأنا ذيك أنا لا أنا صدقالي أولادي مركز كده حيني لكن حرك وقف عن المهنة دو وح شيء جنايو إنه والد وش شيء جنايو صاحب وقف عن الله نقطه سووا حاجة المها صاحبه وح كسووا شيء جنكره والدك يا قرابتنا وكلا بقو والدك بس ما إلمها والديس كير كوين قرابتك كله وكلا بقنا أنا كنت أنا وين حتى أصحاب لنا هودان جناح سجل إنه هدا وصل قرصان إنه هدا وحكي للسمين إنه هدان دين راتين إنه مرة بدل ضدك أصحابنا نقول ضدك إنه قرابتها وأنا بقى حوار لقيت في عينه إنت بنقول نقولها تنكلا إسكولك ما كان داد أديك إسكول وليه iskuulka waad ku qasbi kartaa inay kuu sheegaan dadkaana waxyaabaha wato waa dadka ugu fulaysan waayo
hadday kaa dareemaan inaad tahay waalid adag oo ilmihiisa la socdo oo lagu tixgelinayo hadday kaa dareemaan inaad tahay waalid dansan oo iska daman oo aan waxba la soconin waa lagu dul soconaya haddaa adiga xaqaaga isu istaagtid dadka way ka istaagayaan haddaa laakiin lagaa dareemo dabaxabeecsanaanta iyo waxyaabahaas kale oo lagu dul soconayo tan kale uu sheekhana weydiiyo oo ah maxaa xal ah isagana xalka qayb ka mid ah afka ku dhistay oo ah بديل مجرى waxaan lagu bedelan karo ma jiraan nacam طبعا wuu jiraa waxaa ka mid ah sheekh tawakkal maalinta uu si fiican u soo hadli karaa waxaa ka mid horta kow Soomaalida hadda magaalooyinka charter school badan bay leeyihiin magaalada inta kuma ogi waa inuu soo socday waa ogaa sanadkii soo dhaafay laga shaqeynayay xaaja qadar iyo tiim inay ka shaqeynayeen waa ogaa haddana weli inuu qorshaha socdo weli masaajidka in laga sameyn rabay qorshahaas wuu jiraa charter schoolka wuxuu iskuulada kale uga duwan yahay charterka waxa waaye private ma aha laakiin wax lisla leeyahay oo si oo kira camal waaye hadda charter flight oo kale ama charter bus shirkad bus iska leh baad bus maalin ka soo kiraysanaysaa baskaas aduu charter ku yahay diyaaradaha hadda waxaa awoodaa diyaarad haddaan nahay 500 oo qof oo socota ama 200 oo qof hal diyaarad intaan kiraysano inta ilaa muqdisho hargeysa jidda meeshaan rabnaa socono haddii lacagta loo geyso diyaaradaas anaka inaan kiraysano toos meeshaan rabnaa kala tagto marka charterka waxaa waaye wax adiga ku gooni ah iyo lacagta dowladda isticmaalaysid laakiin dhaqankaaga iyo waxa uu qiyamkaaga ogol yahay baa ku dabaqaysaa caddaanka waxay u isticmaalaan musica oo kale ciyaaraha oo kale iskuul waxaa jiro dhinaca fanka musica iyo artiga waxyaabahaas xiiseeya ilmaha hadduu waxaas xiiseeyo iskuulkaas geysanaysaa ika takhasuskooda iyo waxay xoogga saarayaan xisaabtii iyo science-kii iyo wixii kale waa loo dhigayaan laakiin xoogga tan aan saara kuma dheeraanayo taas waa mid marka charter schoolka waa mid waayo waxaa keenaysa adiga baa xor u ah shuruucda waxaa rabtaa diidaysaa waxaa rabtaa ogolaanaysaa waxaa laga rabaa bas wixii ilmihii waxbarashadoodii inuu heer fiican yahay charter schoolada Soomaalida waa mararka qaarkood waa la xantaa waa la ceebeeyaa wixii dhaliil ugu jira dabcan kuwa hoos kuwa يعني أنا كرو هرو سعودين كوا لعقت الله فرتي كوا جناح سي الله فرتي كوا لعقت الله ولا حصل ما يجرى قال لي مسلم الناس ولا رسمية لكن وحيو قصي دوية وكله قفك ذاتك الشغالة أود والدين تأيا أود كله إنه بوريان جات السكول كقفك معمول ككاء والدين تهدي دهان قفك مرنو جناح سي سماها مشان مقايب وش أفر معها ولا بوريكرا تاسو وأنا أود يرو كوبن واي سيد بابا سكول كوكلا هذا ده ديدو أنت Soomaalida oo hadii diidaan yakale baxay ma ahna qofka maamulka inuu baxo kuma qasbana tan labaad waxa kale oo xal ah home schoolna xal ah ama online hadda iskuulo badan iskuulo kulligood hadda waxay leeyihiin online school oo ilmihii inta la soo la dhaho online ku baranayaan jaadka kale la keeno oo online qof oo waalidiinta qaar kamid ay ka caawiyaan laakiin ilmihii online kala sidii 30 saac isbuuci inuu geliyo waqtigu laga geliyo hajiifaha soo jeedo waqtigu lagu gelinayo laakiin 30 saac marka waalidiin is urursaday inta way ku kaysan karaan jaadka casharadooda kale ugu dhigi karaan online kaasna assignments ilmuhu ka celin karaan waxaa kaloo xal ah oonan weli la gaarin gobolka ogolaan laakiin laga shaqeynayo school choice oo gobollo badan oo waddanka masaajiddo badan ay ka faa'iideen kaniisado badan ay ka faa'iideen taasna haddana cadaadis uu jiraa inkastoo hadda nimankan kale oo laga roon yahay qabsadeen meeshan nagroonayaasha u dooda cadaadiskaasna waxaa waaye ama school choice-ka waxaa waaye lacagta iskuulka la siinayo ilmahaaga qof kasta ilmaha arday kasta lacag iskuulka lagu siiyaa ugu yaraan 1400 oo meel ah iyo lacaga kale cuntadiisii iyo waxyaabihii kale waxaas kale dowladda waxaas bixisa dowladda federaalkana bixisa school choice marka waxaa waaye lacagtaas in laga soo qaado ilmihii lacagta ilmihii inay la socoto guriga haddaad ugu dhigaysid lacagta ilmaha iskuulka lagu siin lahaa in waalidka la siiyo haddaad masaajid geenaysid lacagta masaajidka in la siiyo haddaad daycare geenaysid daycarekaas in la siiyo laakiin kulli waxbarashadii ina tayo leedahay inay la qaadi karto ama ay ka sarreyso waxbarashada dadkan kale markaas goboladan southka gobolada koonfurta oo nimankan kale u badan yihiin jamhuurta taas aad baa looga shaqeeya masaajidda aad baa loogu faa'iideeyay masaajid badan baa ku dhisanba oo iskuulo ka furtay private schools ka furtay isagoo private school ah ilmihii diinta loo dhigaayo qur-aanka iskuulka loo dhigaayo ku xifdinayaan haddana lacag ku siinaysa dowladda lacag ku siinaysa taasna waa xal waxay u baahan tahay bas olole in la qaado in loo ololeeyo waxaan dad baa siyaasadda lagu matala haddayna Soomaali ahayn dad kale ah
dadkaas haddii cadaadiskaas ka saara oo dha waxaana rabna waxaana noodan ah raalliada waa ku dheeraaday waa wax la heli kara waa jazakumullah intaas kusoo kooban ما شاء الله meeshan macnaha su-aashan ah in dugsiyaasha masaajidka gudihiisa wax lagu baro oo diiniya lagu baro ma arrinta diinta keliya ma mise waa lafteeda iskoolka inuu la socdo taas laba waa mid tan online-ka waayo online ama home schooling hadday tahay home schoolingka waa in iyo online-ka waa isku mid ama online isku mid maaha online-ka waxaa waye isagoo ilmihii Wilmer public schools oo kale isagoo ku jira in iskuulka elementary schoolka uu aadayo maxaa iskuulka uu aadayo oo online classada inta ka qaato guriga ha joogo hadda waddanka inay ka baxsan yihiin oo kale lama ogola laakiin aad uma sii fiiriyaan iskuulka haddii la heshiiyo laga yaaba in lagu ogolaado laakiin kaas online ka mid waaye kan home schoolingka isagana waa mid oo waa inuu dhawaalidka anaa guriga ku haysana iskuul dhanba ma geenayo imtixaanaadka waxaan rabaa inuu inta ka qaato anaa waxaan dabarayo taas mid waaye tan online-ka ah ilmaha meesha lagu joogi karaa inta uu joogi karaa oo cashiro quraan iyo waxaas uu wadan karaa waxaa muhiima bas assignmentska iyo imtixaanada kaloo tiro inuu ka jawaabi karo tan ah school choice-ka oo ah lacagta inay ilmaha la socoto oo meesha raba la geyn karo diin waa lagu bari karaa weli hadda waxaa socoto charter schoolka in private school laga dhigo isagoo charter ah sida privateka loo maamulo oo diintii lagu bari karo gobolka Oklahoma mise Kentucky oo marina Oklahoma inuu yahay way ansixiyeen hadda way ka shaqeynayaan intaas la sameeyo kaniisadahana hormuud u arrintan kaniisadaha waa kacaya marka tan oo school choice-ka isagoo meesha charter school ah ama masaajidka ah waa la ogol yahay diinta in lagu baro tan online-ka iyo home schoolingka la madax bannaan mid wax rabtaa baranaysaa waa inuu imtixaanaadka ka jawaabo bas شعب الزاق وحنا نودنا إن شاء الله. بسم الله. سؤاشي هاي مركي عنق مساجد كلا كانوا مدين على بريا مس سكول كلا بريا حلا بريا. الأخ قدوبي ما شاء الله برنامجته كهل يوما وبرنامج في عن أو مصيرية. innaga haddaan nahay community ahaan waxyaabaha aan ka faa'iidaysan karno waxaa ka mid a barnaamijkan ah home schoolka ama online schoolka waalidiintu waxay samaysan karaan hadday heshiiyaan ayagoo maalan 10 famil ah bay intay ciyaalkooda wada home school ka dhigtaan oo ay systemka home school system buu leeyahay waana systemka home schoolka aan la hadashid oo aad ciyaalka usoo daysid oo register garaysid waayo oo la ogyahay waayo ciyaalka meeshay aadaan waa in la ogol yahay waa in la ogyahay yaa waxaad keensan kartaan masaajidka markaasaa waxaad u shaqaalaysan kartaan macallin maathkii iyo xisaabtii sayniska iyo waxyaabihii iskuulka ka caawiya cunugii marka ciyaalkii iyagoo masaajidka subaxii yimid oo maanta dhan joogayay yaa marra macallimiintu waxay barayaan qur'aan marra macallin caadi ahoo iskuulka waxyaabihiisi barayaa u imaanaya arrinkaasi masaajidda qaarkood sida hadda masaajidka Nashville Tennessee oo kale Masjid Faaruq yaa muddo badan lahaa oo meel fiican ku gaaray ardadoodana mararka qaarkood ay iskuulka boosashada ugu sarreysa ay geli jireen marka waxaad samayn kartaan hadday dhowr waalid heshiiyaan 5 waalid 10 waalid oo kale tay heshiiyaan waxay hal macallin oo macallin quraan ah bay qabsan karaan oo maanta dhan ciyaalka la jooga iyo macallin ama laba macallin oo iskuulka waxyaabihiisa ciyaalka u dhiga oo hadduu raba cadaan ah ama macallin Soomaali oo iskuulka macallin caadi macallin iskuula oo galabkii intuu iyoona dhici karta 4 saacadood ama 2 saacadood inuu la joogo oo waxyaabihii iskuulka uu kala shaqeeyo marka waa samayn kartaan cunuga isagoo masaajidka joogo imaanaya in iskuulkiina la baro quraankiina la baro waa samayn kartaan charter school waa siduu sheegay Al-Akh Qudubi asalka charter school waa public school caadi ah waa laakiin waa public school oo dad goori ah ay maamulaan oo community ku base garaysan laakiin shuruucda public schoolka oo dhan isaga way qabanaysaa diin laguma dhigi karo sida caadiga ah laakiin waxyaabo culture iyo Carabi iyo af Soomaali iyo waa lagu dhigi karaa akhlaaqda oo kale iyo waxyaabo waa lagu dhigi karaa laakiin haddii diin caadi ah lagu dhigo hatta dawladdu way xiraysaa diin lagu dhigo
وأوجد السكول كتار مسيا وكلا حيوان لو حنا بكمل هاي لو عيالك يجوا تشين أيوة كلا هدي لا أركب وسكول كساعة عليه سي وقت كاملة أما الدين واللقاية والدنبي لكن شروع ذا بابليك سكول كأن تاتر سكول كوي قوانين إنسان يعني وكلية وكلية ويا هاي تذكر مسؤول كعب عبد الصومالية أو مسلمين أو دقن كاجي يكرت كاجي وتاء أو يدعك تعنقي إني سكون وروى الخبر ويا لغة مادة عربي أما في صومالي أما اللغة أما كرت كلا حياكم بس كريسنا والله نكرا إن شاء الله تعالى لكن حيابها آت كلغة فائدة كرو حكمنا هم سكول كأما إسلام سكول هدي الإسلام سكول كو وطن كان مسهلنا صوت الأقالة بدل مبهي هاي لكن هذا مجالنا أنا كهو مجالية هدي إسلام سكول كوا برايفت عالي أواي هذا إسكال والدين طلعت إسكال بحين هي دولة تكون فرق شميسو لكن كروكلام كأضو بيجي سبعة وبنغني كروكلام وناكسن أو دين تعالي التفسير القرآن بعد بالك كرا لكن مواد سكول كواين لبرا وين لبرا ها وإن نظام سكول كحاجة معلوم أقنت وإن ستاندرد قبل وحبرشة لا يعلم مركا إسلام سكول كوالا سبعين كرا برايفت سكول وين سو برايفت سكول لا برايفت سكول كوحر تبع تجيسا لكن وين وحبرشة عيالك أي في عنتها ولا بتبقى جالسنتها أنت سؤال محمد مركو حسبين كرتان صدح فصل مثلا أما أفر كلاس أو مثال كم إذا أو هكذا كرتان برايفت سكول أو إسلام سكول لا معلمين بالحياة كريسن كرتان شغالي سن كرتان مركزا معلمين تاس إذا كنت نقالة إسكار ورسام بسين كرتان أيها عيالك وحيابيه ودي جاي سكولك إذن كانوا حسبين ساعة عضو بدل أو عيالك القرآن كي دينتي الله دينه الله سبحانه كلا مرك سيستم كو وترب بدي هاي وانا إسلام سكول هذا حتى كجرو كلا ستيت كمان الصراع كلا بدل كودو حتى إسلام سكول حب بدل معه وإسلام سكول مع هانا لكن حقيقة مرك الله في ريو وهم سكول وعيالك ماشي على سوق كان ما دوي مع الله ديجا لكن عيالك وحي سيستم بكحريهن أنا هين مدح بنانين بكحريهن بدل كودو مركا هدي ضد وحبرشة خبرت الجوجان وحيابا بدل وحاجة حل نعم كره ووليهم مجال ده أو كره مجال يردد فيه هنا حل نعم كره جري والله برنامج وين وجب بارك الله فيكم سيدي عن سكول جينا إن شاء الله تعالى وحين عندنا من صلاة المغرب وجب جبيننا آخر قوتهم بيان قرآن ما ختمنا هدي الله رالك كديكو يا سؤال كلا قبل شيخ توكل باسنا جعل لها إنه أصنع وحقان نقدره ونوصل ختمه أنت آيات القرآن كهويلك نو ختم لها نوير إن شاء الله تعالى وحي قدر لك صح خصوصنا ونركينا إن شاء الله. بسم الله. dhinacyada iskuulka iyo qaababkay ku wanaagsan yihiin akh Qurtubi iyo shacab saaq baa tilmaamay laakiin waxaas oo dhan saameyntooda waxay ku imaanayaan waa political iskuulaadka public iskuulka waxa uu taageeradiisa ka imaanayo waxa inay ilmuhu isbedelaan ka imaanayo xogaal buu yahay madaxda hadda gobolka tartamaysay waanu la wada fariisanay waanu kala hadalnay inkastoo community yar aanu nahay dana waxaad ogaataan xaqiiqa wadaadadu waa kala leexdaan laakiin uu kama leexdo hadda marka dhibaatooyinkan iskuulaadka ay soo baxeen siyaasiyiintii aan dooranay qof noo soo fariistay waa weynay xayeel mabaadiida xisbiga u yaallo ilaalinaya ايش كوميونتي إلى لها سأدرى هذا أما مدو هذا أما عدان هذا أما الصومالي هذا هذا الحقوق هذا وسكتوا الجوين عد كعصير وحسب نقول هذيك هو بابليك سكول أو بابليك تشويس كا هدي لو يسدوا تلمامي هم هدي لو يو أنا أسقط الشيطان ولكاد هاي ستان أنت أسقط هاي ستان وقت يصير صعود هدي الله يصير صعود وح إمام دونا الماء هذا دوين كان لسينا يسكت دايم بقى يبدلني إن كم بإيمان يسوع حتى ولادته وحكوا إيمانية إن عن المساجد كالله جاهد ذكر اللي واضحة يبقى يسبدله ولادك للسود جرينكر شرع ومالي والبو حب بدنه وكوميونتي حب بدن وكوميونتي مديسن وترتمي إني ضد كان بدلان كوميونتي جالس كيرو مساكين تامرك عدد كأنه يسكب حنين أو ما لا يعني أو محبن نوقص النقوني حافظ هذا سياسي مثلا قف كسيدي كونسل كاجا مثلا
انت بعدكين انه اسكو حرنادو مديسنادو اما المهاسات بدبادين لهيدين مسؤوليه دي الهي دين صاري وحبينا سياسه لغا قبل والصومالي هي مقع يسون كراعي المهاجا قفك فسادين اما صومالي هذا اما نينك لها هذا حقوقdaadu waa inaad ilaashato taa waxa ugu weyn weeye xisbiyaduna waxay ka mid tahay meelaha dadka bini'aadanka maanta nolosha ugu kala bedelay dimuqraadigu wuxuu ka mid yahay waxyaabahan xoog badan ee maanta community-geenu ku baaba'ay nimanka kale ha lahaadaan cunsuriyad ha lahaadaan nacayb ha lahaadaan iyaysan ku soo dhaweyn immigration ha la dagaalamaan laakiin xagga value-ga waa ka simantii si ilmahooda ula cararayaan baa dadku ula cararaysaa bay qabaan laakiin haddana annagu waxaan xoogga saaraynaa ka culimo ahaan shirar baa noo socda miitinno xoog badan baa socda naqaash baa socda kulli wuu idin soo gaaraya hadda meelaha aan joogno insha allahu tacaala marka waxaan xoojinaynaa islaamic school ومقالة يرباتين وادسن كرتان وحوجيسن كرتان سكول ماشينا تستعمالي كرتان إلا يسقط الشظايا المها أن هوستينا لقلب بحل أنت سوق جبين يا وجزاكم الله خير. جزاك الله خير وبارك الله فيكم إلهي من بركة والدك يا علماء مالك لدون وجه ماضي waxa inta dadka qofka ka qeylisiinaya waa cabashada ka soo yeedhay waddanka aan joogno kontaga state ka kooban gaar ahaan gobolkan aan joogno Minnesota marka insha Allah taala ilaahay culimadana ha inoo daayo diin iyo maadiba garanaya oo la socda wax kasta oo maalidayna soo baxaya haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah taala Ibrahim جمال إنه وختم آيات القرآن إن شاء الله تعالى أنت هذا المخرج اللي قاعد فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ما شاء الله تبارك الله حلايا بنهي آياتك أكفر فرني يكون الوختمي ما شاء الله تبارك الله سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إيوه إن هذه أمتكم أمة واحدة فيري إلهي ما يقول لي بل لمنك آياتك إلى الدورين فيري وقرآن للربو إني نبدلان إن شاء الله تعالى وديني مادي بس لقرنا يا جزاكم الله خيرا على اجتماعكم الله يبارك بكم وجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء الله يبارك والدك علمدي يددك لنا أجيبي ما أنت خير بدن بعد كرستين إلهي سبحانه وتعالى هينو أقبله أولادنا الله هينو حفظيه عمر الليل عبادة بن يرزق واسع الله نسيه جزاكم الله خير هذا صلاة من خربتكم جزاكم الله خير